عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هداه، صارت به الدنيا تسير بمنهج، نور على نور على نور هداه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaad kalood ku soo dhawaataan barnaamijkii beerta rabadaanta shicaarkiisuna ahaa shumuuliyat alislaam. mowduucan maanta ka hadli doona waxa weeyaan أي دعوة تحتاج إليها أمتنا. دعوة نوعية أحيان ما تقبها أنها تذكر إن أبيضنا. فعلا إسلام كانوا وإسلام أما الدين صالحة لكل زمان ومكان. كوهبون وقت كستا إيه ميل كستو اللي تشوفه. سيدا درت يدبا وحال الربا إنك هدان هيداد مسلمين إن أن دينتي إن دادك أبيضنا oon tusno wanaageena iyo khayrka aan haysano iyo nicmada aan haysano aan la wadaagno ummadaha kale oo aan faafinana. sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga dhigay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. waa dacwadda waxaan khayriyada aan ku qaadanay iyo inaan ummadihii kale kaga khayr badnaado waa islaamka iyo faafintiisa inaan u sheegno yani maaragtay dadka kale aan gaarsiino. haddaba dacwaddaas iyada ah ee aan rabno maanta inaan ummadeena u yeedhno waa tamaxay la weyn ama sifooyinkii ama tilmaamaha ay leedahay. tilmaanta koobaad ee dacwadda maanta ummadeena ay u baahan tahay ama aan rabno inaan dadka ugu yeedhno waxa weeyaan kow alxikma. waa inay dacwadeenu noqoto tuxt xikmadaysan ama xikmad leh, taasoo ah wahiya aladillatu almuqnica alwaadixa. daliilooyin aad ku qanciso qofka oo waadixa oo aad cad, walkaashifatu lilxaq xaqana muujinaysa, wadaaxidatu lilbaatil baatilkana yani difaacaysa oo baabi'inaysa. wahiya dacwatu ilaa xikmat illahi subxaanahu wa tacaala bilcilmi walbasiira. inaan ilaahay dartii u yeedhno inaga oo ku hubaysan cilmi iyo aragti waadix oo cad oo muuqata halka aan u soconno iyo waxa aan dadka ugu yeerayno. qofka daaciga ana waxa laga rabaa inuu ku bilaabo hab xikmadaysan dacwadiisa ilaahay ugu yeerayo isagoo oo ka dhaqaaqaya aayaddii quraanka ahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa wadcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana. nebigaa la faray oo aayad qur'aan oo nebiga lagula hadlayo, laakiin وإننا وإنه تعالى ما دام نقول نهاي يعني ما رتاي أمدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا إن نفافنا دينتي وحو إلهي يا أيها النبي أدعو إلى سبيل ربك يعني أقيد شتك إلهي بالحكمة والموعظة الحسنة. هب حكمة ذيسا يوم موعظة حسنة وجادلهم يعني أصحاب الباطل ضدك كاسور كذا ama gaalada ama kufaarta waxaad kula jidaal ama kula dooda billati hiya ahsan. billati hasanun ma billati ahsan waa ta ugu fiican, yani ahsan ma tastati anta waxa aad u karaysa ta ugu fiican kula dood oo kula jidaal. taasi waa kow oo maanta dacwadeenu sifada koobaad ee u baahan tahay in ay yeelato oo aan ku dhaqaaqno waa xikmad. wax kasta oo xikmad aan ku salaysnayna midhihiisuna way yaraadaan, meesha uu gaarana ma fogaadaan. falidaalika buu rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kathiira. qofki ilaahay uu xikmad siiyo iyo yani maaragtay hadal toosni uu siiyo khayr badan baa la siiyey. lianna qofka xakiimkiihi waxyaabo fara badan oo adiga kaa qaadan lahaa waqti ama si dhib badan kaa qaadan lahaa si yar oo fudud
iyo meeshii u gaabnayd iyo dariiqii u asalsanaa xikmadu iyo u dhigaya nuqdada labaad ee aan rabno maanta dacwadeenu ay u baahan tahay waxa weeyaan الموعظة الحسنة الموعظة الحسنة وتكون الموعظة يعني ووعدي أما هذا الشيدين أما أغيرد وناكسنها باللطيفة بالآيات القرآنية آياتها قرآن يا سبحانه وتعالى والأحاديث النبي عن أغيرد موعظة حسنة والتي وردت ذكرها يعني مارتها في الموعظة آياته فرها بدنا سيد النبي نوح عليه الصلاة والسلام محولها إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلهي طولكي هبيني درار بوان الله وحسي ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار كورنا وانو شيء هوسنا معناها كما الدليل مركو هبيني درار سوجيد يسيجيد سرعوا قاددي هوسو لقيت انت بو كدي مربدا كان يعني موعظة حسنة واسا موعظة حسنة هي واتي الله سبحانه وتعالى وأنبيدي سفري أولها يعني مرة مركي فريين يا نبي الله موسى يا هارون محلولي ائتيا فرعون فقولا له قولا لجنا كلها هذا التوصل هذا الجلعسن لعله يتذكر أو يخشى إله سبحانه وتعالى مركان نبي الله موسى يا هارون ودريو يعني عالم ووجهه إنه موسى إنه يعني عفوا فرعون أو الرومينين لكنه طريقة دعوة عديني إنه قولا لينا لعله يخشى وحل الشيء قصة خليفة هارون الرشيد أيون نص وقال لي واعد فشدد عليه مركزوسي أدق كل هذي وكأت كي يعني هارون الرشيد من حكماء وحاها دتك أبو حكمة بضنبوها يعني مرت خلفاء العباسية مركز سوريا ارفق يا هذا وبلدتش كانوا ايدتي وارنك ارسل الله من هو افضل منك الهي با صوت ديري عيد اديك كافي عن الى من هو اشقى مني نين ايغا غالسن او ايغا ادق ايو صوت ديري محو فرين لكن يري لعله فقولا له قولا لينا بيري هذا هذلك اي فضيديو سيرو دغن الى هذا سيرو دغن marka deganaansha hadaladu oo qofka si degdan ula sheegto oo yani maartay mawcida xasana oo u dhimrisay waa dariiq asal dariiqa ila nufus waxa la yiraahdaa dadka qof gaadha naftiisa inaad gaadho arto waa hadal dabacsan oo aad kula hadasho way inaga oo ku sii jira yani maartay qisaskii ama aan ka soo qaaday Harun al-Rashid nin oo dadkii yani maartay culimada oo al-Bahlul ila Bahlul waa dad yani انقطعوا للعباده عبادته وقاي ايو كيرا ليدي بل اي وعدي مانتا اما wax ii sheeg wuxuu ku yiraahdaa leeydi meel dheer bagoon soo qaadine ya amiir almu'miniin bal ka waran hadii adoo boqortooyadaada iska jooga oo aqalkaaga iska fadhiyo lagu yiraahdo kaadidoona kugu joogsato bas kaadida ma ka soo bixi ma ku bedel oo lagu yiraahdo kaadi intii lagu joojiyo lagu yiraahdo kaadida waxa laga soo deynayaa markaad boqornimada ka dhaadhacdo marka wuxuu soo barbar dhigay kaadidiisii iyo boqornimadiisii labada mid ka dooran lahayd kaadida kugu joogsatay iyo boqornimada wuxuu ku yiri caafimaadkayga waxbaan ku bedelanaya boqortooyada maxay ii taraysaa anoo kaadiga iibin markaas wuxuu ku yiri ittaqillaha ilaahay kaga cabso buri fi mulkin la yusawi bawlak boqortooyo aan kaadidaada la qiimo ahayn ilaahay hadaba kaga cabso markaas wuxuu yiraahdaa maalintu dhimanayay يا من لا يزيل ملكه عد أين ملكه سولي نينو ارحم من زال ملكه ونحريصه عد أي ملكه سولي أو بابا يكون ويه نقطة أفراد أن يعني مرت هاي ما أنت أبغى دعوتهم هايان المجادلة الحسنى المجادلة الحسنى مركز دوت إيو ديبيتي لقبنا إيو إن أين نقولن دوت فاسق أو يعني مرت هاي آياته منافقة مثل إذا يعني خاصة ما فجر أي نقطة وأي نقطة وحن كدودين وحوش يجين وحصحة موافق لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة مقنعة ثابتة أين نقطة فلسفة كورجي أين نقطة أين قف كان لقاءات كينين أدقو قف كي حق هاكو تاجنا أضرن لين هذا عمل خاصة ميس أهل النار بات هاي صح عمل كأهل النار كهو سمينيا
لكن الله غفور رحيم إلهي وتوبة وقدم بأقبله قفكي أصول نقضى وإليه نتوب وبالله التوفيق وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.